السلام عليكم دمانتين واني ودا سلامة مeel walba adduunka ka joogtiin magacayga waa Nuruddin maanta waxaan jeclaystay in aan ila wadaago subaxii waxa aan cuno oo quraac maxaa yeelay waa muhiim qofka in uu ogaado waxa uu subaxii u cunayo maxaa yeelay badanaa sidaan ognahay anaga dhaqan waxaan u leenahay subaxii inaan canjeero badan cuno inaan malawax cuno inaan chapati cuno marka cuntooyinka noocaas oo kale sidee ugu hortagi kartaa haddii oo niyadaada ku jirto inaad lose weight aad suubisid hilib soo kaaga dhaco ama haddii mowqifkaadu uu yahay inaad calool rabtid inaad iska jirtid cuntooyinka noocaas oo kale sidee iskaga joojin kartaa oo u cuni kartaa cunto fudud oo aad hilibna kaaga dhici karo haddii oo caloolna rabtid inaad heshidna aad ku heli kartid maxaa yeelay waa muhiim qofka kaliya jimicsiga lagu suubiyo jimka kaliya muhiim maaha jirka laguma dhiso qofku waa inuu ogaado waxa uu cunayo in ay yihiin waxtar inay macnaha ay siinayaan oo macnaha ay ka caawinayaan qofka hadduu jimicsi guri ku suubinayo ama jimka maxaa yeelay cuntada waa macnaha aad bay muhiim u tahay qofka inuu kala ogaado cuntooyinka nacfiga leh sidoo macnaha jirkiisa horumar uga gaaro marka maanta waxaan jeclahay inaan la wadaago subaxii waxaan ku quraacdo waxa ay kala yihiin status white kaliyaan kula kariya laakiin badanaa waa isku bedelaa marna waxaan karsadaa 6 xabo laakiin waxaan jeclahay markaan karsanayo oon caadi u karinayo biyaha ku karinaynin inaan waxaan jeclahay cuntadeena flavor u yeelo badanaa sida hadda u jeedin avocado half jeex oo avocado ah waxay lefaad fiican oo healthy ku jiro basasho kale iyo yaanyado kale waxaan jeclahay inaan ku darsado laakiin waxaan badanaa iska ilaaliyaa cusbada laakiin waxaan u use garayaa vinegarka 1 scoop of vinegarka ayaan ukunta kula karsadaa markaan karsanayo sidoo kale waxaan jeclahay subax inaan cabo kafeega waxaa yeelay aniga badanaa biro culus aan qaadaa 5 days ni gymka waa aadaa sidaas marka waxaa waaye subaxii waa inaan energy fiican aan haystaa kafeegana waa muhiim qofka laakiin inuu sokor uuna ku darin oo macnaha uu kaliya sidiisa ku cabo haddii aad sokor inaad ku darsatidna waa wax yaroo been oo hal qaado oo malaba ku darsanaysaa ku laaqanaysaa sokorta kale caadiga cadka iska ilaaliyo waa cudur sidoo kale aniga markaan oats karsado waa sida u jeedin hadda kan waa plain original way kuwa waxaa jira ayagoo flavor leh waxyaalo ku jiraan kuwaas iska ilaaliya kaliya muxuu ahaa midka originalka oo saan oo kale soo gata kabacdi haddii aad u baahan tahay xogaa yar wax yaroo macaan ah oo inaad ku darsatid hal qaado malaba ku darso ama cinnamon ku darso so subaxii pretty much intaan cunaa laakiin badanaa hadda xilli waxaan ku jiraa oo macnaha oo cutting ah oo xilli waxaan raadinayo waa murqo badan laakiin markii xilliga oo murqo raadiska aan ka baxo oo macnaha raadinayo size oo macnaha rabo inaan weight weyn isku oo macnaha saaro cuntooyinka noocan oo kale waa bedela breakfastiga cuntooyin kale oo nooc kale waxaa jirto bulk season la dhaho ayaan subaxii cunayaa insha Allah waxyaalo badan ka faa'iido doontiin waan soo wadaa sidoo kale waxaan jeclahay badanaa markaan karsanayo kunta inaan kula karsado canola oil maxaa yeelay aad bay muhiim u tahay oilkan muxuu ahaa fadna zero fat way calories kana waa 0 calories aad bay muhiim u tahay iska ilaaliya cadayda waxaan ku darsada olive oil ama canola oil insha Allah waxyaalo badan oo cunto ku saabsan waan soo wadaa oo kamid yahay buugan sidoo kale waxaan soo wadaa low carb waxyaalo badan oo cunto oo kala duwan oo healthy ah jirkana aad ku dhisi kartiin waan soo wadaa insha Allah khayr ayaan idhaaf dhamaantiina